markan bal inaan si yaroo kooban 2-3 su'aalood kaa weydiiyo fanka Soomaalida adigu waxa tahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti jamhuuriyaddan waxaa degan fanaaniin iyo abwaano Soomaaliyeed oo Soomaaliya burburkii ka yimid qaybna waxaad ka qaadataa dhinaca horumarinta fanka Soomaalida khadka telefoonka waxaa inagu soo biiray Xasan Aadan Samatar fanaanka Soomaaliyeed oo magaalada Minneapolis jooga marka السلام عليكم سهلا habeen maalin wanaagsan idinku habeen anagu idinku maalin baad joogtaan anagu habeen waan galabaya ma sha Allah waa tahay marka madaxweynaha doonay Xasan inaan su'aasha koowaad weydiiyo dhinaca fanka bal madaxweyne maxaad ku qiimeyn kartaa heerka fanka Soomaalida xilligan wallahi anigu yani kolka aan daawado telefishiinadan badan ee Soomaalidu leedahay fankii si wanaagsan inuu u socdo oo de yani style-kii hadday tahay yani dhalinyaradii ay mar walba adeegsanayaan yani raggii yaqaanay af Soomaaliga sidii caadadu ahayd in magaranaysaa ay waxaan jeedaa abdajiyada yani geeraarku sida fiican inuu samaysan yahay ayay adeegsadaan music wanaagsan bay saaraan yani laxina aad iyo aad u kala yani u fiican oo de oo ay ka faa'iideysteen yani dadka kale iyo mujtamacyada kale ay la kulmeen oo maanta heer fiican gaadhsiiyay yani fanka iyo musiga yaa ii muuqda aniga waa tahay marka isbarbardhig markaad ku samayso fanaaniinta geyiga Soomaalida geeska Afrika xilligan iyo kuwooda qurbaha jooga iyo kuwa geyiga ku suganba iyo kuwii hore markaad eegto Xasan naqadku ku jira maxay kula tahay adigu farqiga u dhaxeeya anigu yani waxay dib u dhac buu yaa ku yimid aniga ilamaha inay tahay laakiin horumar wanaagsan kuwii horena waaba de asaaskii oo yani waxaad arkaysaa inay iyagiina la qabsadeen yani qalabyada cusub iyo cilmiga cusub ee yani oo de wixii la adeegsanayay television iyo internet iyo wixii oo dhan ay si wanaagsan ay uga faa'iideystaan ka horisade waxa weeyaan salkii oo ragga hore yani anagu dadkii hore haddaan nahay kulliba de iyagan anagu weli qalbiga ku haynaa marka fanaaniinta cusub ma dhegaysataa madaxweyne adigu waan dhegaystay laakiin waqtiga igu yaro laakiin heesii hore Soomaalida sida Xasan iyo si fiican u dhegaysataa kuwaasaan dhegaystaa haye Xasan أنا أتذكر وحصل على مدحوينها مدحوينها أنا كل تاجرها كواد بار أنا واسوقها لا يسوق ويديو واجب حصلتها هست بكرة صفر استراتيجيان كول أي قط هست يا أبو حسن قلي مركب مدحوينها واقو سلامي هرمر يبرقا قبل رجينا جمهورية جيبوتي ومضى كل واحد عبد العزيز aad u maasay waa tahay madaxweyne maxaad Xasan ka dalban lahayd heesihiisii oo jeclaan lahayd inuu luuq yar inoogu luuqeeyo heesihiisu de aad bay wada fiicnaayeen way isagaaba imika doorta isagaaba doortay guyad badan soo baxa kaliishi silsila loo degay sanad geeru badi dhalay بدن صباحا كاليشي سلسلة لودي سنات قلو بدي دلي وي سنتي لا ليس بدون صعود بران وي سنتي لا ليس بدون صعود بران صلاحي صامي الشقاوة
soo hadiyo isagu waa laba sabar suufeeyeymido kasanqariyey doftii sideedan jaleecada saxsaxaad gombada sanka kuula raa heestaasi waxay leedahay qiimo yaab laho yani ninka xasan geni waxa weeyaan yani nin aad qiimo u leh oo happy new year baan leeyahay madaxweynaha horumar iyo barwaaqo u rajeynaa ummadda marxaba waanu saarida dhaxan weyn baa indhahayso aan ogahay waa waray waa tahay